Bannaanbaxa looga soo horjeedo socdaalkii uu gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka Galmudug. Bannaanbaxa ayaa waxa soo qaban qaabiyay maamulka degmada Cadaado waxaana ka soo qayb galay bulshada qeybaheeda kala duwan. Ugu horeyn ayaa bannaanbaxa waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xuseen Tootole iyo wasiirka arrimaha gudaha Galmudug. Sidoo kale dadka bannaanbaxa ka soo qayb galay ayaa dareenkooda ka muujiyay goobta. waxa weeye wixii siyaasi aan ku jirnaa looma baahna inaan ka harno ama dib u dhac uga samayno. ninku waa qaldabi karaa hadduu qaldaban ninka la yidhaahdo ra'iisul baarlamaanku waxaanu leenahay ra'iisul baarlamaanka qaldanta soo dhawow. waxaan halkaan ku soo baxnay oo aan shucuurteena ku muujinaynaa waa taageerada Galmudug iyo dhaliilada safarkii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Jawaari uu ku yimid degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. marka sidaas daraadeed waxaan bannaanbaxan ku taageeraynaa Galmudug horkaca iyo habsami socodka ay ku socoto. salaan kadib waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una faraxsannahay dadweynaha reer Galmudug gaar ahaan degmada Cadaado dadka ku nool sida wanaagsan ee dhiiran ay shucuurtooda ku muujinayaan wana hor yimaadeen wax walba oo carqaladaynaya nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda. aad iyo aad baan idinkaga bogaadinayaa sida wanaagsan oo shucuurtiina u soo bandhigteen. waxaan la soconnaa in maalmahan uu yimi ra'iisul baarlamaankii dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada madaxda dowlad goboleedka Galmudug magaalada Dhuusamareeb iyaduusan ogeysiin madaxdii iyo maamulkii Galmudug. waxay arrintaasi dhabarjab ku noqonaysaa nidaamkii ama processkii la waday. Bannaanbaxani ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo mid la mid oo looga soo horjeedo safarka gudoomiyaha baarlamaanka ee Dhuusamareeb uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Kawthar Cabdiraxmaan Cabdullaahi, warbaahinta SBC, magaalada Cadaado.